السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسر دوادا مركز America Code Academy waxaan jeclaaday maanta inaan sii wado solidity faa'iidooyinka aynu ku tilmaanayna waxa weeyaan inay ku dhisan tahay blockchain waxa la yiraahdaa inay ayaga ku dhisan tahay blockchain sidii aynu uga hadalnay hore waxa weeyaan program amba waxa weeyaan system cusub oo ah mid decentralization ah oo aan si dhex marahayn dawlad amba aanay cidin lahayn gaari dad isku xiran ay leeyihiin oo kala degan adduunka daacadadiisa halku doonaba qofkaas ha jooga tusaale ahaan taasi waa faa'iidada ay leedahay waad arki kartaa Soomaa faa'iidada ay leedahay waxa kamid ah waxa la yiraahdo VPN-ka amba waxa weeyaan marka aad doonahayn in shirkadda computerka internetka ku siisa amba aan doonahayn qof hacker inuu helo halka joogtid amba waxaad sameynaysid inuu helo VPN gebigiisa waxa weeyaan anigu halkan Mareykan jooga ayaan computer Hargeysa jooga ku xiran karaa amba computer Hargeysa jooga toos igu soo xiran karaa 100 milyan oo qof ka soo qaad oo isku xiran oo mid walba toos iskugu xiran yahay haddii mid ahaan la jabiyo oo la haagareeyo tusaale ahaan dee waxa faa'iidadaasi tahay haddii program aan qoray maanta tusaale ahaan bankigayga inta lacag igu jirto kale haddii aan ku save garay computerkayga uu qof tabeetana is yiraahdo haagare computerkayga dee markiiba uu heli karayaa informationkii waanu baabin karayaa ka waran haddii aan ku save gareeyo 200,000 oo computer oo adduunka kala yaala oo midba dacal u yaala way adkaanaysaa qofka siduu dee intii computer adduunka dacaladiisa yaalay uu haagareeyo uu helo way adkaanaysaa sida awadeed ayay waxay saasoo kalena dawladda inay aragto waxa diraysid iyo inay aragto waxa weeyaan inta lacag lagu charge gareeyo dad dhexdhexaadiyo waxa weeyaan brokera amba dilaalin inay lacag ka qaadanayo waxa sameeyay ka baxaya toos bad qofkii ula xiriiraysa amba lacag isku weydaarsataan amba codeyn la codeynayo hal is weydaarsado amba hal is weydaarsado contract amba hal is weydaarsado amaaho toos ahaan bay iskugu xirmayaan internetka oo kale toos ahaan baa la iskugu xiri karayaa taleefanada kale toos baa la iskugu xiri karayaa adeegyada kala duwan ee dadku u baahan yihiin toos baa la iskugu xiri karayaa faa'iidadaasi ay leedahay in decentralized laga dhigo wax walba solidity ama blockchain na waxay solidity waxa qoray ethereum na waxay ku base garaysan tahay blockchain sida Bitcoin oo kale ay ugu base garaysan tahay marka waxaan bilaabaynaa halkii baan kasii qaadanaa simple contract baynu qoraynaa waxa weeyaan contract fudud marka wuxuu yidhi let us begin with the most basic example it is fine if you don't understand everything right now and we'll go into more details later macnaheeduna waxa weeyaan example fudud baynu ku bilaabaynaa haddaan imika fahmin wax kasta ha ka warwarin waynu sharaxi doonaa hadhow intaas weeyaan macnaheedu paragraphkaas marka waxaan ku bilaabaynaa markastoo solidity qoraysid waa inaad ku bilowdo waxa la yidhahdo pragma solidity dabeetana daabacada aad ku qortid wayna keenayde shay kasta bugaagta sida bugaagta oo kale dabacada koobaad dabacada labaad dabacada saddexaad dabacad bay ka dambaysaa Soomaa dabacadani marka waxa weeyaan wax kasta oo ka sareeya dabacad kasta oo ka sareysa 0.4.0 ayuu ku shaqeynayaa contractkani amba programkani ayuu macnaheedu weeyaan intan maanta waxa ugu dambeeyay ayaan rajeynayaa hadda tagtid IDE-ga amba waxa weeyaan muxuu ahaa solidity IDE-ga la yidhaahdo remix haddaad tagtid maanta versionka ugu dambeeya wuxuu weeyaan baan rajeynayaa inuu yahay 5.14 so 0.5.1114 laba week ka hor markii aan qoray markii aan sii daayay videogii hore 13ka ayaa ugu dambeeyay marka taa macnaheedu waxa weeyaan
versionka aad ku qoraysid ayaad markaa waxa weeyaan eegaysaa marka wuxuu ku bilaabaysaa programkaagu dabcadu yahay dabeetana waxaad ku bilaabaysaa kelmadda la yidhaahdo contract and then contractka magaciisa marka contractkan waxa uu bixiyey simple storage waxaan doonaynu bixin karnaa haddaynu doonno waxaan odhan karnaa contractkan waxaa la yidhaahdaa macaamiil oo kale ayaynu odhan karnaa right wax macnaa ma samaynayso waxaad u bixiso contractkaaga wuxuu ku saabsan yahay baad contractkaaga u bixinaysa contractka dabeetana waxaad qoraysaa variableka amba waxa weeyaan khaanadaha aad doonaysid inaad wax ku riddo waynakii hore usoo tilmaamnay in program kasta oo aad qoraysid computerkaagu uu yahay sidii khaanadoo kale laba khaanadoodna wuu leeyahay sida oo muxuu ahaa wax lagu safe garaysto sida ramka oo ah temporary wax ku meel gaadha iyo waxa weeyaan hard driveka oo ah asagu mid physicala oo asagu ah